ninkaan markii hore oo meeshii imaanayay markiisii ugu horeysay dowladda dhaxaa keensatay. waa gartay hadda markii ugu dambeysana waxaa keensatay dowladda Hirshabeelle dowlad ku sheegaa keensatay. ayadii waa diiday hadda ma aqoonsanayo in dowladda dhaxaa la qaadaa oo yiri cidda soo magacaaday isaga yaa wey markii ugu dambeysay waana soo magacaaday. haye sidee marka ku diidaya xilka qaadista lama aqaano yiri asaga hadda anigu dulmiga galay awalba umadeeda ka galay halee cafiye saasi idaacada geli saasaan baqlaariga. waa gartay kolkii hore magacaabista uu ku imaanaya ee madaxweynaha Hirshabeelle uu soo magacaabay dabcan uu ku qanacsanaaye markaan dambe maamulkii aqoonso waayo oo uu diiday xilka qaadista maxaa ku sababay taasina si weydiisida ficilada aniga xaq u bari inay ugu weydiiso taas nabadoonada la safaraad qayb ka tahay ma propaganda fidin adiga taas aniga nabadoon aan ahay isuu dabageed kaliya u meeyay umada xawaadlo dhanaan waa nabadoon iyo mar kala sukeeyaan dhamaantood ay siban yihiin gobolka Hiiraan sanado badan gudoomiyaal badan ayaa isku bedelay xalka dadkuna ma ahan in gudoomiyaal isbedelaan oo gudoomiye xilka laga qaadana muran buu keenaa oo ma jira mid si sax kaga degay isagoo aanan khilaaf keenin maxaa ugu wacan kula tahay taasina shacabka degan magaalada weydiisay aniga weydiisay dadka shacabka nabadoonada iyo samadoonada ay xusheen adaa qayb ka ah isida muddo fara badan oo meeshan ka shaqeynay maray dowladda dhexe dhowr jeer soo magacaawday nimankan dhowr jeer soo magacaabeen muddo badan oo jooga meesha in magaalada laga yaqaano degan waa markii xilka qaadista lagu sameeyay oo warqadiisa ay soo baxday magaalada Beledweyne oo xaruntii gobolka Jahwareer ayay gashay shacabkii dibadbax ayay dhigayaan ama ha taageeraan ama ha ka soo horjeestaan dhibaato ayaa nooga imaanaysa ciidamada amniga maxaa nabadoonada hadii aad tihiin oo aad u garaabaysaan oo aad doonaysaan in magaalada xaalkeeda aad ku soo celisaan horta marka koowaad aniga dambi ay gelin anigu meel warqad looga qaaday asaga xil ma arkin waa gartay shacab banaan baxaan ogahayna ma jiro anigu ma arkin waa gartay odayaasha dhaqankuna kama shaqeeyaan siyaasadda dhaqan ay ka shaqeeyaan waa gartay dowladda ay u shaqeeyaan oo mushaarkiisana ma jirto cidda xildhibaanada soo xusho miyaysan ahayn nabadoono laga qaado iyo cid xil la siiyana kalama jeclaba hadda maxaad Yuusuf u garab taagantahay oo adigu la safan tahay Yuusuf ma garab taagan Yuusuf waa shakhsi caadi ah oo shakhsiyaadka reer Hiiraan kamid ah sida shakhsi kasta reer Hiiraan oo ugu sameeyo asagoo ugu sameeyo waa gartay hadda magaalada xaalkeeda iga waran waxa lagu soo waramayay ciidamo militariga Soomaaliya ka tirsan xarumo dawladeed oo ku yaala magaalada ay la wareegeen meel kana ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed loo geysanayo waay mar ka suuroodo ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed inay meel la wareegaan ama ay sameeyaan wax sharci darro magaalada gudaheeda amniga magaalada hadda ayaa sugaya ma ciidamo Yuusuf uu wato mise ciidamada militariga Soomaaliya amniga magaalada mar walba ciidanka militariga sugu jiray furmayna joogaan magaalada gudaheeda ma joogaan magaalada police military waa joogaan shacabku waa joogaan wax dhibaato ka jirna male way degantaa xaaladeedu 90% Yuusuf dabageed ma xafiiskiisa buu ku shaqeynayaa mise xafiis kale oo magaalada ayuu joogaa taas waa meeshuu joogi jiru joogaa xafiiskiisa fadhiyaa ilaa saacad xafiiskiisa fadhiyaa dadka Hiiraan hadda xal maxaad u haysan dadka Hiiraan xal ilaahay waxa ay kuwa dawladda isku sheegay xal u bahayaan cidda leedahay dawladda isku sheegayaan yaa wey qolo kasta ismagacaabo meel fadhiso waay maamulka Hirshabeelle ayaa deegaanadaas ka arimiyo dawladda dhexe ayuu hoos tagaa cid ka baxsan ma idin taliso annagu ma arag waliya wax Hirshabeelle oo shacabka ilaahay xaqiisu odayaasha dhaqanka oo beelaha odayaasha ayaa dhaqo ayaga xukun ayaga maamul ayaga kala dambeyn maxkamad kale odayaasha ay ka dhisan ma jirto gobolka